بسم الله السلام عليكم سؤال أساتذة قليل هرجينا في عتين سود هذا دلنيرة مسلم كاه يبراه بالشدة هل جنود حياة في النو يفائده هذه ما أنت لقاك على تلفون كاجا أفر إلى 20 ساعة محله من لهد براه بالشدة ميهن الباب كجوش هذا مسه الباب الجحيم هذا لو من لها وقت كاجا بربرين لها نولش هذا waxaan nahay jiilkii ugu xogta badnaa taariikhda bani aadamka haddana sidoo kale waxaan nahay jiilkii ugu jahwareerka badnaa ee taariikhda maxaa dhacay maxaa se qaldan waa su'aal isweydiin mudan waxaan ku noolnahay adduun qof walba wax uu arko wax la soo bandhigayo qof walba noloshiisa soo bandhigayo laakiin dhanka wanaagsan waxaan noqonay daawadayaal waxaan noqonay consumers waqti waxaanu joognaa dadkii ay noqdeen kaliya inay wax qaataan oo aysan waxba soo saareen taariikhda bani aadamka waa markii ugu horeysay jiil dhan uu noqdo consumers inay wax qaataan mooye aan waxba soo bandhigin percentage ugu badnaa ee abid taariikhda waa jiilkeena Gen Z-ga saaxiibayaal baraha bulshada ma ina burburinayaa mise waa ina dhisayaa waa su'aal u baahan in si qoto dheer looga fikiro loo falanqeeyo loogana doodo khaasatan dhalinyarada muslimka ah baraha bulshadu waa halgan u dhaxeeya fitno iyo faa'iido aan ku weydiiyo su'aal shakhsi ah baraha bulshada ma fitna ayuu kugu yahay mise faa'iido ayuu kugu yahay adiga shakhsi ahaan qof kastoo daawanaya muuqaalkan wuxuu jeebkiisa ku sitaa aalad ka awood badan kombiyuutaradii lagu geyn jiray dayaxa laakiin su'aasha meesha taala waxay tahay aaladdu adiga ma kuu shaqaysaa mise adiga ayay kaa shaqaysaa baraha bulshadu waa seef laba af leh fitno iyo faa'iido waa jaamacadda ugu weyn ee dunida goob wax lagu barto ganacsiga ugu weyn ee dunida goob ganacsi laga sameeyo maal laga samayn karo lagu faafin karo khayrka dacwada sidoo kale waxay noqdeen meel lagu burburiyo nolosha lagu dhameeyo waqtiga lagu burburiyo akhlaaqda dadka siiba dhalinyarada sidoo kale lagu xado maskaxda iyo hal abuurka dhalinyarada maanta waxaan ka hadlaynaa halganka ugu weyn ee dhalinyarada muslimka ee casrigan halgan u dhaxeeya fitno iyo faa'iido ku soo dhawaada videogeena maanta waxaa jiray wiil dhalinyaro ah kaasoo aad u aqli badnaa wuxuu lahaa hami iyo riyo aad u weyn wuxuu rabay inuu aqoon barto aqoonyahan noqdo wuxuu rabay inuu noqdo ganacsade wuxuu noqday inuu noqdo saameeye influencer dadkiisa saameeya mid naftiisa anfaca dadkiisana wax ku soo kordhiya inuu qoyskiisa caawiyo dalkiisa wax u anfaco diintiisana uu faafiyo laakiin wuxuu waqti badan ku lumin jiray isticmaalka faraha badan ee baraha bulshada ee taleefanka saacado fara badan oo TikTok scrolling ah kadib saacado fara badan oo haddana Facebook scrolling ah haddana kadib saacado kale oo reels ah saacado kale oo YouTube ah saacado kale oo chatting iyo shukaansi maalayacni ah 5 saacadood 7 saacadood 8 saacadood maalintii ilaa 10 saac ma kula tahay wiilkaasi dhalinyarada ah social mediahaasi inuu ahaa faa'iido ama fitno sanado fara badan ayaa sidaasi ku dhaafay isagoo aanan ku baraarugsanin oo aanan ogeyn waxa ku dhacay iyo waxa ku habsaday dhibaatada dhalinyaradana fara badan ee maanta haysataa waxay tahay anagoo aanan ku baraarugsanin oo aanan ogeyn musiibada nagu habsatay fitnada social media iyo isticmaalka faraha badan ee taleefanka waxaan soo baraarugaynaa markii da'deenu ay naga daba timaado sanado fara badan ay naga lumaan laakiin adigaan hadda i daawanaya saaxiib hadda waad baraarugi kartaa oo dhibaatada waan ku fahansiin karaa halkan waan ku siin karaa ila soco ilaa videoga dhammaadkiisa wiilkaasi maalmaha ka mid ayuu waxa uu la kulmay mid saaxiibadiisa ka mid ahaa saaxiibkiisii ayuu waraystay oo sheekaysteen saaxiibkaasi wuxuu ku yidhi saaxiib anigu baraha bulshada waan ka faa'iidaystay oo waxaan u isticmaalay qaab faa'iido ah waxaan ka bartay xirfad waxaan ka sameeyay lacag waxaan ku samaystay ganacsi waad u jeedaa noloshaydu waa isbedeshay horumar iyo faa'iido ayaan ka sameeyay isticmaalkii baraha bulshada halkii aad adigu isku burburinaysay social media anigu waan isku dhisay saaxiibkaygan hadda daawanay adiga aan ku weydiiyey baraha bulshada mid faa'iido ku ah baa mise waa mid fitno kugu ah jawaabtaada dhabta ah waxaad heli doontaa sanooyin yar kadib insha Allah wiilkaasi waxa uu fahmay baraha bulshada dhibaatada ma aha ee waa hadba qaafkii aad u isticmaashid sida aad u isticmaashid bay noqon kartaa dhib ama dheef fitno ama faa'iido adiga ayay ku jirtaa midaas bal aan isla fahanno fitnadu waxay tahay fitnadu waa wax kasta oo qofka ka leexinaya jidkiisa toosnaa ku riixaya dembiga jahwareerka isku buuqa iyo luminta waqtiga iyo burburinta noloshaada faa'iido waa wax kasta oo aqoon
xirfad ama dhaqaale iimaan horumar iyo faa'iido ku kordhinaya noloshaada bilowgii 2000 baraha bulshadu waxay ahaayeen aalad isgaarsiineed taasoo loogu talagalay dadka inay ku wada xiriiraan laakiin markii la soo gaaray 2010 iyo wixii ka dambeeyay ilaa 2026 oo hadda aan joogno waxay noqdeen awood saameyn ku leh fikirka dhaqanka akhlaaqda siyaasadda ganacsiga iyo habnololeedka dhalinyarada maanta iyo balaayiin qofood oo ku nool dunida maanta waxaanu joognaa waqti tiknoolajiyadu ay tahay daruuri hadba doorashadaaduna ay qaabeynayso inay fitno kugu horseedayso ama faa'iido ku horseedayso sida lagu sheegay warbixinada caalamiga ah ee digitalka 2025 iyo cilmi baarisyo kala duwan ayaa sheegaya in ka badan 5 bilyan inay isticmaalo baraha bulshada celcelis ahaan 5 bilyan waxay 3 saacadood ilaa 4 saacadood ay ku qaataan baraha bulshada inaa 3 saacadood iyo 4 saacadood aad ku luminaysid baraha bulshada waxay xaqiiq u tahay inay saacadahaas ay ka go'an yihiin noloshaada iyo mustaqbalkaaga haddii aadan u isticmaalaynin qaab faa'iido ku ah dhalinyarada ayaana ah isticmaalayaasha ugu faraha badan ku luminayana waqti ugu faraha badan baraha bulshada cilmi baarisyo fara badan ayaa muujinaya in uu xiriir u ka dhaxeeyo isticmaalka xad-dhaafka ah ee baraha bulshada iyo walbahaarka walwalka stresska jahwareerka iyo isku buuqa kuwaasi oo dhan waa dhibaatooyin fara badan ee ina haysta dhallinyaradeenna maanta dhanka kale kumanaan dhalinyaro ayaa ka baratay xirfado kuna samaystay ganacsi kana samaynaya dhaqaale tani waxay inoo caddaynaysaa hal xaqiiqo baraha bulshadu waa midi laba af leh mid fitna ah iyo mid faa'iido ah islaamku ma diidin horumarka mana diidin tiknoolajiyadda laakiin waxa uu ina baray mas'uuliyad waxa uu inoo sheegay in waqtigeena laga xisaabin doono waqifuhum innahum mas'uuluun joojiya iyaga sababtoo ah waa la weydiin doonaa waa laga xisaabin doonaa ayadan micnaheeda waxay tahay wax kastoo aan daawano wax kastoo aan dhegaysano wax kastoo aan ka faaloono wax kastoo aan qorno inna laga xisaabin doono oo na la weydiin doono عليه صلوات الله وسلامه عليه وحو يري ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ما جري قف هلايا إلا واحد جرى ملك كاسو قرية شر أما خير ما أنت وقت كان تكنولوجيا اللي جوجو هذا الكاس واحد ونقون كرا قرآن فالو لايك شير أما كومنت لما أنت وعلى قرية وأنا لو يدين دونا هل كان كفتنا ذا يفا إلى ذا برها بالشدو لأن يريدنا واحد إنه رشدي كران وقت اللمس اسبربريك جوجتا حاسد نيو أخلاق حمو مبدأ الآن قيم كيرا وحلابة قوات المسكحات كلا فوقانشي قيسكا هو صدع عبادة ذا معنى درا ذا حريرة ذا لنك فائدة ذا برها بالشدو سيدوك الواحد نقون كران دوكسي فران جامعة أما إسكول goob ganacsi suuq shaqo kaasoo ku soo sara dhaqaale madal dacwo xarun waxbarasho meel aad ku faafisid khayrka waxna aad ku baratid meel lagu dhiso sumcad iyo goob lagu abuuro saameyn wanaagsan sidaas awgeed saaxiibkayga adigoo arkay soona fahmay faa'iidada iyo fitnada adigu qaybtad ku jirtaa bal aanu soo laabano waaqica dhallinyaradana Soomaaliyeed ee maanta dhalinyaro badan ee maanta waxay saacado fara badan ku qaataan daawashada nolosha dadka kale laakiin waxay waqti yar geliyaan dhisidda horumarinta noloshooda iyo naftooda waxay yaqaanaan influencer kasta qof kasta oo caan ah every celebrity way yaqaanaan laakiinse ma yaqaanaan awoodooda kartidooda naftooda dooqooda iyo damacooda waxay la socdaan guulaha dadka kale dadka ay taageeraan waxay u dabaaldegaan guulaha dadka ay taageeraan laakiinse ma qorsheeyaan mana qortaan guulahooda iyo istaraatiijiyadooda khaaska u ah taasi waa caqabadda ugu weyn ee dhallinyaradana maanta in haysata waxaynu noqonay consumers qaatayaal ee aan waxba soo saarin saaxiib saameynta wanaagsan iyo faa'iidooyinka baraha bulshada qof walba uu ka dharagsan yahay waa uuna og yahay balse dhibaatada in haysata waxay tahay ficil la'aanta waxba ma sameyno anagoo wax kasta og hadda 95% dadkan hadda dhageysanaya dhammaantiin waad ogtihiin faa'iidada iyo fitnada baraha bulshada haddana isma kontroli karno iskamana celin karno
saaxiib iska gaar halis weyn ayaad lugaha kula jirtaa iska gaar noloshaada badbaadso waxaa laga yaabaa maalinkaas inaad boqolaal muuqaal aad daawato laakiin su'aasha saxda ah rabaa inaan ku weydiiyo waxay tahay imise muuqaal ayaa noloshaada saameeyey bedelay fikirkaaga saameeyey habdhaqankaaga iyo akhlaaqdaada waxaa laga yaabaa inaad saacado fara badan la socotid nolosha dadka kale laakiin goormaad la socotay aad daawatay naftaada iyo noloshaada waxaa laga yaabaa inaad taqaanid sheekooyinka dadka caanka ah badankood laakiin weli ma qortay sheekadaada saaxiib noloshaadu way ka qiimo badan tahay in lagu lumiyo iskroolin aan dhammaad lahayn ilaahay waxa uu ku siiyey awood maskax waqti firfircooni iyo energy waxaad leedahay riyooyin waxaad leedahay hami ha u ogolaanin hana noqonin qof kaliya dadka kale guulahooda daawanaya ha u ogolaanin hamigaaga iyo higsiga nolosha aad ka leedahay inay burburiyaan daawashada dadka kale waxaad ogaataa saacadahan faraha badan ee aad ku luminaysid daawashada nolosha dadka kale aad la socotid dadka aad taageertid waxay ka go'an yihiin noloshaada iyo mustaqbalkaaga saacadahaasina ku baraarug oo fahan noloshaada geli si uu mustaqbalkaaga fiican kugu soo saarto saacadahaasi u isticmaal inaad naftaada ku hormarsid noloshaada aad ku dhisid si uu mustaqbal ifa kugu horseedaan insha allah ha noqonin qof kaliya dadka kale daawada ee noqo qof sheekadiisa qorta guushiisana dadka kale ay daawadaan adiga ayaan iskale go'aanka maanta saaxiib si kasta scrolling u sameey ma dhammayn kartid muuqaalada baraha bulshada ku jira adiga unbaa dhammaanaya adiga unbaa noloshaada soo idlaanaysa laakiin muuqaaladaasi scrollingkaas aan dhammaadka lahayn ma dhammaanayaan mana dhammayn doontid ee ogow midaas sidaas awgeed saaxiib hawlwelin hadda waxaan kula wadaagayaa 5 talaabo oo ficil ah hadda aad samayn kartid si aad naftaada uga badbaadisid fitnada baraha bulshada ee noqo qofkii samayn lahaa kuna dhaqaaqi lahaa ficiladaas hadda aan kula wadaagayo si aad naftaada iyo noloshaada u badbaadisid insha allah qodobka koowaad nadiifi dadka aad follow garaysid ka saar baraha bulshada wax kastoo akhlaaqdaada iimaankaaga iyo qofnimadaada dhaawacaya unfollow dheh dadka aan wax micnaha aan kugu soo kordhin noloshaada qodobka labaad sameyso xeerka koowaad 30 daqiiqo oo waxbarasho ah ka hor madadaalo kasta inta saacad ku lumin lahayd isticmaalka baraha bulshada 30 daqiiqo geli horumarintaada iyo waxbarashadaada 30 daqiiqo kale kuu soo horay madadaalo oo baashaal qodobka saddexaad follow garee ama subscribe u saar dadka saameynta leh noloshaada wax ku soo kordhinaya culimada dadka saameynta wanaagsan leh macallimiinta iyo dadka xirfadaha ku baraya noloshaada wax dan ahna kuu soo horseedaya oo kula wadaagaya unfollow dheh dadka maalayacniga ah qodobka afaraad hal xirfad ka baro internetka sanadkan hadda go'aanso inaad sanadka inta ka harsan aad xirfad aad ku baratid markuu sanadkan dhamaadana aad noqdid qof xirfad leh xirfadaasi waxay doontaa noqoto laakiin markuu sanadkan dhamaado waxaad joogtaa faa'iido go'aankaasi hadda gaar oo baro xirfad saameyn leh qodobka shanaad toddobaadkii hal maalin sameey digital detox lahaw toddobaadkii maalin aad ka soontid baraha bulshada si aad ugu soo laabatid caadinimada aadna u noqotid qof caadi ah kaasoo aan ku dhegnayn kuna mamnayn taleefankiisa iyo baraha bulshada u soo laaba caadinimada saaxiib waxaad tahay qof qaali ah waxaadna u qalantaa nolol qaali ah uma qalantid nolol maalayacni ah ha sameynin wax maalayacni ah ha daawanin wax maalayacni ah waqtigaaga si kastaba wuu kaa baxayaaye ku bixi wax macno leh noloshaadana faa'iido u leh haddii aad ka heshay muuqaalkan aadna jeceshahay muuqaalada noocan oo kale ah subscribe saar oo nagu soo biir waxaan nahay jiilka mucjisada surprise generation sg community waxaan rabnaa dhallinyaradeenna inaan fitnadan aan baraha bulshada aan ka badbaadino aana u horseeno faa'iido iyo isticmaalka fiican ee baraha bulshada kuwaasoo nacfi iyo naruuro u ah noloshooda iyo mustaqbalkooda ha seegin fursaddan ku soo biir jiilkan mucjisada ah subscribe like and share haddii aad aaminsan tahay in dhallinyarada Soomaaliyeed kaliya aysan u baahnayn madadaalo oo ay u baahan yihiin iimaan xooggan akhlaaq wanaagsan maskax dhisan xirfado casri ah hogaamin iyo aragti fog ku soo biir SG community hadafkeenu waa inaan dhisno jiil Soomaaliyeed kuwaas oo isku darta diin dabeecad akhlaaq aqoon iyo horumar kuwaas oo adduunkooda dhista aakhiradooda u amal fala haddii aad rabtid inaad noqotid qof saameyn wanaagsan ku leh bulshadaada qoyskaaga iyo asxaabtaada ku soo biir SG community aan wada dhisno aan noqono jiil ka faa'iideysta tiknoolajiyada una isticmaala qaab faa'iido u ah ha seegin fursaddan ha seegin jiilkan insha Allah muuqaalkan kadib su'aasha aan ku weydiinayo waxay tahay marka aad furtid taleefankaaga
ma waxaad daawanaysaa wax noloshaada burburinaya ama wax noloshaada dhisaya wax faa'iido ku ah ama wax fidno kugu ah doorashadu waa xaggaaga baraha bulshadu maxay noloshaada ku soo kordhiyeen ma faa'iido mise fidno aad baad u mahadsantiin asxaabtayda qaaliga waxaan rajaynayaa inaad ka faa'iidaysteen videogan aadna noloshiina ka badbaadsan doontaan fidnadan baraha bulshada oodna u bedelan doontaan dhanka faa'iidada waxaynu balana videogan insha Allah subscribe sar like sar video share gareey waxay naga caawinaysaa inaan si fudud u korno waxaynu balana videogan insha Allah kulanti dambe wax xiiso leh mac salaam